magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay kulan dhageysi dadweyne oo looga hadlayay hindis sharciyeedka cadaaladda daa'irta Soomaaliyeed kaasoo ay soo qaban qaabiyeen guddiga garsoorka ee cadaaladda golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. kulanka dhageysiga dadweyne waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, aqoon-yahano dhanka shuruucda, qaybaha kala duwan ee bulshada, qaar ka mid ah culimada iyo senataro ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka. xogayaha guud ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Ibraahim Guuleed oo faahfaahiyay muhiimadda kulanka ayaa sheegay in fadhigan loogu talagalay in lagu dhageysto mas'uuliyiintii iyo dadweynaha ka qayb galay kulanka aragtidooda ku aadan hindis sharciyeedka cadaaladda daa'irta Soomaaliyeed. maanta halkan waxaan u fadhinaa inaan dhageysano oraahda iyo aragtiyada ku aadan mas'uuliyiinta iyo sharci yaqaanada kala duwan ee ka kala socdo hay'adaha kala duwan ee ku casuumay maantayto inay noogu imaadaan meeshan kadibna ay nala wadaagaan aragtiyadooda ku aadan sharcigan maanta hindisa sharciyeedkan horyaalla golaha aqalka sare. qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulanka ayaa soo jeediyay in qodobada qaar ee sharcigan dib u eegis lagu sameeyo. sharciyeedkan waa inuu waafaqaa dastuurka maadaama uu yahay dastuurka wax ugu weyn sharci dejiyaasha dhan ee wada maamula. sidoo kale da'yar micnaheedu waxaa loola jeedaa qof weliba oo da'yar micnaa wuxuu noqon karaa qof 30 sano jira, qof 25 jir ah, sidoo kale wuxuu noqon karaa qof 45 jir ah. qodobka 15aad nambarkiisa koowaad waxaa ka dhalan kartaa markii la dhahay wax ka yar 14 sano ayaa kaliya ayaa la maxkamadayn karaa. marka ayada ilmaha 14 sano ka yar ee dambi weyn ama fal dambiyad weyn gala maxaa lagu sameynaa? cadaymaha lidiga ku ah eedeysanaha iyo in dacwadda macnaha la hubiyo in dacwadda la horgeyn karo maxkamad. taas waa awoodii qodobka 10aad xeerka ciqaabta iska laha xafiiska xeerarka guud ee qaranka asaa ka go-aan gaaro dacwaddan ma la geyn karaa oo cadayn ku filan ma loo hayaa oo maxkamad ma la horgeyn karaa galka ma in la xiro u baahan yahay mas in baaris dheeri lagu sameeyo. ereyga baahiyaha gaarka teknoloji ahaan xataa markii laga hadlaayo sharciga usaxiya dadka naafada ereyga baahiyaha gaarka maalmahan waa laga sheegtaa. waxaa la yidhahdaa ereyga saxda ugu habboon waa naafada. sababtoo baahi gaar markii la yidhaahdo xitaa ninka dhalinyarada aana guursan waxaa la yidhahdaa baahi gaar leeyahay. baahida gaarka maalmahan aadan looga sheegtaa marka xataa sheeko suu wada imaano. senatar cali gacal oo ka mid ah senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka islamarkaana goobjoog ka ahaa maanta kulanka ayaa sheegay in muhiimaddu ay tahay in la fahmo cidda kormeeraysa maxaabiista kuwaasoo uu tilmaamay inay yihiin maxkamadda racfaanka iyo xeer ilaalinta. laakiin waxa ay kormeerayaan maxkamadda racfaanka iyo xeer ilaalinta waa maxay? xabsi baad tagtay, saldhig boliis baad tagtay, xeer ilaaliyaa tahay, maxaad kormeeraysaa? waxaad kormeeraysaa oo keliya qaybtii adiga aada xafiiska ku soo maamushay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Cabdiraxmaan Xasan ayaa dadweynaha u sheegay in sharcigan lagu soo dari doono aragtidooda. doorka ugu weyn maanta idinkaale waxaan rabnaa inaad qodob u fiirsaan, ka qayb gashaan, ka doodaan, ra'yigiina ka dhiibataan. deetana waa la duubayaa, waa la qabanaya. marka ra'yigiina hadhowta waxay noqonaysaa in lagu daro sharciga lagu daro. sharcigana waa muhiim, wuxuu ka hadlayaa ciqaabta daayarta. marka inaad si fiican uga fikirtaan oo runtii dhaqankeena iyo diinteenaba ku salaysan oo ra'yigiinana ka dhiibataan baan runtii aada soo dhaweynayaa. gudoomiyaha guddiga garsoorka iyo cadaaladda golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya senatar Naciima Xasan Garweyne oo soo xirtay kulanka dhageysiga dadweyne ayaa sheegtay in qodobada qaar ee hindis sharciyeedkan dib u eegis lagu sameyn doono. anaga laftarkaygu mar baan soo akhrinay waxyaalo badan aad ka dhawaajiseen waanu isweydiinay anagoonu ka dhawaajinay. marka meelahaasoo dhan way in xoogaa lasii tafasitiro ama lagu noqdo waa loo baahan yahay oo ishuuga ugu weyn uu yahay sidii ay walaalahay qolooyinkii ka socday ay ka dhawaajiyeen ahayd da-dan oo xoogaa confusion badani ka jiro. tii diinteena islaamkana aan waafajisnayn ee 15 ahayd. marka halkaa xoogaa in ku noqosho u baahan tahay waanu isla qaadanay. mukhtaar cabdicasiis simacade warbaahinta qaranka muqdisho.